وعانو wanaagsan ilaantiin baddaawadayaal halkaad inaga dheehanaysaa waa Jeeka Media News fadlan haddii aad inagu cusub tahay follow na soo dheh like tan ugu dhirigali sidoo kale haddii uu muuqani ku soo gaadhana saaxiibada la wadaaga Joseph William waa 41 jir ka soo jeeda Chicago waxa uu ku dhashay xaalad aan caadi ahayn oo naadir ah oo loo yaqaano autophagial facial taasi oo ka dhigtay daallaan inuu ku dhashay daallaan waxay la yaab ku noqotay hooyadii kadib waxa loo qaaday Chicago si uu maro qalino si wax ka bedel loogu sameeyo muuqaalkiisa isagoo jira dhalashadiisa kadib dhowr maalmood oo kaliya inkastoo dadka ay uga carareen cabsi darteed balse ma uusan u ogolaan in xaaladiisa ay ka celiso wax kasta oo noloshiisa sidoo kale waxa ku adkaatay inuu shukaansado sababtuna ay ahayd in kalsoonidiisa nafeed ay tahay mid hooseysa waxa kale oo uu sheegay inuu dareemayo inaanu wax qiimo lahayn hase haatee William ayaa muddo dheer u inuu kaliga isku qaadan doono noloshiisa inta ka dhiman ilaa uu la kulmo saaxiibtiis Fiona oo 39 jir ah sanadkii 2019 noqotayna gacalisadiisa nolosha kula midowda kuna qanacsan qaab muuqaalkiisa dabiiciga ah inta badan ay dadku cabsi uga tageen si kastaba haatee William waxa uu bartay sida uu dadka ula xiriiri lahaa isagoo isticmaalaya luuqadda dhagoolayaasha ama suldhabaalaha iyo qoraalada telefoonkiisa ku darso waxa uu wax ku tiyoob ku xidhan afkiisa oo cuntada ama sharaabka si sahlan u geeya calooshiisa balse xaaladda adag ee uu ku jira kamaysan dhigin inuu ka quusto wax kastoo noloshiisu ay rabto ama uu damacsan yahay inuu rumeeyo ka gungaadhistiisa William hadda waa mid ku qanacsan noloshiisa rumaysanna in caqabad kasta oo qofka soo wajahda looga baahan yahay inuu uga falceliyo si togan isagoo mar walba ka eegaya dhinaca wanaagsan